waxaan ahay dhibane oo aanan isdhiibin oo weli noloshiisa rajo weyn ka qaba. tani waa barbilowga sheekada dhibane Xamse Maxamed Aadan oo qayb ka mid ah laxaadkiisa ku waayay dhibta iyo hagardaamada ay kooxaha khawaarijta ay ku hayaan bulshada Soomaaliyeed. waxaan ahaa macallin gelinka hore ka shaqeeya iskuul ka shaqeeya gelinkan dambana watay mooto bajaaj ah aniga iska leeyahay walaalkay ii gaday ilaahay khayr siiyo marka alxamdulillaah rabbil caalamiin in muddaan ku shaqaysanayay alxamdulillaah sanadkii 3 bishii 6 2021 habeen soo galaya waxaa igu dhacay qadarta Eebbe subxaanahu wa ta'aala alxamdulillaah rabbil caalamiin anigoo maraya meel lagu magacaabo magaceeda maqaayadda Luul Yemeni anigoo maraya halkaasi ayaa maxaa la yiraahdaa waxaa ka dhacday musiibo ka dhacday alxamdulillaah rabbil caalamiin xagaasi waxaan ku waayay gacantayda midig ayaan ku waayay alxamdulillaah rabbil caalamiin korkoo dhan waa i gubtay lambar 2 calooshii mandhiciraha dhan way shafmeen alxamdulillaah rabbil caalamiin walilah tacaalay dhaawaca nololeed ee soo gaaray Ustaad Xamse ma noqon mid ka reebta meertadiisii qorshihiisii nololeed ee hore wuxuuna dib u bilaabay mar kale xirfadiisii hore ee baranimo. runtii dhaawaca ay gaaray oo haddana aad u halis badnaa dhaawacaasi wuxuu ahaa mid aad u halis badan haddana markaan caafimaaday noloshii kuma aan rajo dhigin alxamdulillaah haddana waxaan dib ugu laabtay macallinimadii aan dib ugu laabtay si aan u soo saaro caruur fara badan ama jiil fara badan oo markaasi oo kuwaasoo naqan lahaayeen kuwa aan wax aan baran. dhacdooyinka mahadhooyinka leh ee ka dhaca caasimadda dalka ee Muqdisho iyo muuqaalada murugada leh ee ku haramaanka dadka waxaa ku hoos laran sheekooyin shakhsiyaad oo ay ku laran tahay geesinimo iyo dhabaradii wada jira waxayna cod sare ku leeyihiin caasimaddu waa caasimadii sawirka annaguna waxaan nahay dhibanayaal aan isdhiibin. murtiyay maguuraan taariikh la soo maray sheeka micnayse xamar waa madhaafaan waana lagama maarmaan malkii dalkeen iyo kartida midnimadan labadaba ku miisno marsadiyo baddeediyo. Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho. isku muuqdo xamar waa madhaafaan.